daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka farshaxan maanta waxaan idin hayaa qisooyinkii ugu la yaabka badnaa ee aan maqlay haddaba daawasho wacan kulanti wacan daawadayaal maanta waxaan idin hayaa ama idinka warramayaa laba qiso oo la yaab leh oo aan maqlay balse aanan goobjoog u ahayn si balarta kamarada aan hagaajiyay daawadayaal iga raali hada cameraman malihi ama qof iga duuba malihi sida awgeed ayaan anigu kaligay isaga duuba waxaan idin hayaa laba qiso oo la yaab leh oo aan labadaba dhageystay waata koobaade waxaa islaayay baa la yidhi ama istagaalay laba nin waa nin aad u xoog weyn oo cimlaaq ah oo cirka iyo dhulkaasoo ninkii garan loo geliyay walkii reer Jabuuti iyo nin yar oo daciif oo lagu kabriida ku socdo oo gabigiisuba bila taqwada oo intan leeg haddaba dagaalku xoog maaha ee waa xeelad si ay noqotayba waxa dhacay markii labadii nin iskaleen ay gundaha istareen in la barkaday ama la legdaday kii xoog weynaa buurnaa ayaa la legdaday oo la barkaday kayare dhooban isagu iska hayuuniyaan kugu soo kicin sakaraatullaahi buu moogtay ku legdaday xeelad iyo farsamo laakiin se marka labaad hadii la isla soo kaco ninkan soo kaco marka labaad in la legdayay iyo waxa maaha ninkan ta ugu horeysa ku diira kadib waxa dhacay dadkii baa magaalada Hargeysa ahayd dadkii oo dhan baa isku soo ururay labadiina waa la kala qabtay kiina waa laga dulqaaday halkan baa la dhigay kadib maxaa isku haysataan markii saa loo kala qabtay waa kii buurnaa la kari waayayba waaba la kari waayayba nag waaris ka joogmay maanu kayra dhooban legda waa laba nin oo waaweyn kii dhuubnaa labadii nin kii dhuubnaa markuu arkayna ninkan la karayn oo ka taagan yahay doonay in mar labaad galaan ayuu fikiray wuxuu shiraadii markan ninkan mar labaad lagu soo daayo xeeladii hore iyo farsamadii hore ma shaqeynaysaa waxa samaysa dhaku keen wuxuu yiri dhamaan walaalayaashaydiina kala qabtay waxaan ogeysiinayaa ama sidaad noogu timaadeen nagu celiya ama ninkan kala kaxeeya macna waxa weeyaan aniga dusha saarnaa oo aniga legdaday ii legda ama na kala kaxeeya halkii baa lagu wada qoslay kii xataa buurnaa uu qoslay dabeetana sidii baa lagu kala tagay taasi waxaan ka dhageystay barnaamijka xulashada la yiraahdo ma garanayn imika la soo daayo radio Hargeysa laga sii deyn jiray maalinta Jimcaha Sidiiq Burma saaxiibka Sidiiq Murmud baa sii deyn jiray salabaad waxa weeyaan sheekadan iyadana waxaan ka daawaday telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti oo Maxamed Cabdi Buux miyuu ahaa Maxamed Cabdi Buux barnaamijkii bandhiga TV-ga la oran jiray Jan Taalon kuna ugu jiray Jimcaha ay soo deyn jirtay TV-ga Djibouti ee habeenka Jimcaha soo galayo ayaan ka daawaday marka ninba ka sheekeeyay meesha macallin oo fadhiisan jiray wuxuu yiri wax lagu waramay xaq hooyada amaba dhalintu inta badan xaq hooyada kuma baraarugsana inkastoo culimo saynis yahanni ay sheegeen in qofku markuu 30 jir gaadho uu ku soo duxo jacaylkii waalidnimo oo markaas uu soo jeclaado sida badan waxa la sheegay in qofku markuu isagu wax dhalo uu isna waalidka jacaylkiisa dareemo kadib waxa dhacay wiil iyo gabadh bay isku guursaday hooyadu inta badan wiilasha jeceshahay hooyadii baa u timid waayahay gabadhii dhowr bilood markii joogtay way saniftay islaantii saantana hadalka badan labadaasina waa coliyo laandeero hablihiina iyo hooyada iyo islaantaadu saddexdaasiba waa colo dhinac alla dhinac raacdana ma garanaysid moogti dad gabadhaadii raacdo waa way rabaysatay ee iskalayo ka marqaata iyo la oranaya moogti haddaad xagga raacdina tii kala dooday soo habloodii hooyadii uga raacay marka labadii si alla si la yeelo la garan maayo kadib waxa dhacday marka gabadhu uur bay lahayd wali waxa ma dhalin adu markay sanaftay man ka kaxeeyaa hooyadii ha wad nacday uu ka kaxeeyay guri kale u kureeyay meel kale u geeyay waa Djibouti ka dhacday kadib waxa dhacday gabadhii ayaa umushay dhakhtarka la geeyay dhakhtarkii bay ku umushay maalinta ay umushay ee 3-4 cisho markii ku jirtay dhakhtarkii ay baxaysay ilmaha qaadanaysa buu dhakhtarkii ku yiri doctorow ilmaha yar uma baahani iska qaatay idinku
annagu taasaan ku tagaynaa waar ilmuhu waa sida war maxaaraan baad ku dhasheen wireless buu ahaa may wirelessna ma xalaal buu ahay laakiin annaga ka maarna ma rabno gabadhii sidii kaga dhaqaajay gabadhii ilmada allah ma ilmahayga iga fogeynaysaa ma ilmihii hooyadeed kala fogeynaysaa waxba waalid baan ahay waxba ma garanaysid wax ilmihii hooyadii baa la kala fogeeyaa sidee ugu calaacash oo maadaama ka ii sheegay buu xaq waalidka hooyadii baad iga fogeysay aniga marka iga fogeysay ma ilmihii hooyadii hayn imika hooyadii hal wacay hadda hal laga soo kaxeeyo halkii joogto xaafadina lagu soo celiyo ilaa ay xaafadii hooyo timaado ilmaha walaa dhakhtarka laga qaadi maayo sidii bay ku rumowday islaantii waxa loo diray telefoon wala telefoonaareeyay gurigiisii bay ku timid sidii ayay ilmihiina lagu qaaday gabadhii bes shib dambe miyay islaantii dib ula hadashay labadaa sheekaba runtii waa sheekooyin aad ii qanciyey marka maca salaama fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan ha mogaanin like share iyo subscribe waa mahadsantihiin